زاهر بن حرام رضي الله عنه صحابي اللي أورنجري مقالة المدينة ما دقنين ميجي يقول دقنا مرقو ميجي إيمانا يو مقالة أوصو سعدو هدي ذهب ميجا لغا صوهلب ونبيغا أوكي نجري هديد عنها أما صوبقا أما ملبكا أما هيلبكا وحباب النبي أوكي نجري صلى الله عليه وسلم markuu isaguna magaalada Madiina oo ka caraabayo reerkiisa ku noqonayana reemigu waxay magaalada uga baahdaan buu nabigu markaa isagana u diyaarin jiray طبعا dadka reemigu magaalada maxay ka qaataan sokor iyo saliid iyo bariis iyo zamankana wixii miigu magaalada uga baahan yihiin ayuu nabigu magaalada Madiina uga diyaarin jiray markaa buu nabigu oran jiray inna zaahiran baadiyatuna wa nahnu haadiruhu ba nabigu oran jiray kaleey salaatu wasalaam ninkan zaahira waa reemiga yagi anaguna reer magaalkiisii baan nahay rasuulku oran jiray waliba nin wuxuu ahaa daciifa miskiina reemi magaalada Madiina mararka qaarkood isagii rasuulka ayaa miskiidka dhexdeeda intay ku haraan bay ku sheekaysan jireen markaa buu nabigu miiga nolosha miigu ka wareysanayay ku dhaqmaan waxay ku dhaqmaan caadaadkooga maalin maalmaha kamida ninka zaahir ee noocaas reer baadiyaha oo soo lugeeyay nin reemiyo soo lugeeyay waad garan kartaa ma aragtaanay naqaska jirkiisa ka soo baxaya ayaa magaaladii Madiina suuqeedii buu iska tagay badeecadu markaa watay waxbuu markaa u iibgeeyay waxna uu ka iibsanayay suuqa markaa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam suuqii Madiina nabigu soo galay wuxuu arkay ninkii zaahir oo meesha fadhiyo sii jeedo wax gadanaya markaa buu nabigu xagga dambu ka istaagay deedna labada indhood buu nabigu qabtay markaa buu war adoonkan aniga ayaa iga gadan oo iga iibsanaya ilaa zamanka adooma la iibin jiray moogtahay meelaha qaar kood way jireen waxyaabaha shariicada islaamku ay horumarka ay shariicada islaamku caalamka u keentay waxa kamid ah adoomihii la iibsan jiray diinta islaamka xoreysa wixii oo dhan oo baabiisay markaasuu ninkii u carooday markaa ilaa nin xor oo carabiya oo la leeyahay waa adoon ayaa iga gadanayo iga iibsanaya u xanaaqay markaa mar alle markuu dareemay cidda gadaashiisa taagan inay tahay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam laana gacanta nabi maxamed gacmaha way ka duwanayd Anas bin Malik oo khaadimkii nabigeena ahaa wakiilaha maan taaban buu yiri maro xariira oo ka jilicsan kafkii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam maan urin buu carfi ka udgoon badan carfiga jirka nabi maxamed ka soo baxaya inaka maalintii magaalada markaad u dhaadhacday suuqa aad ka soo noqonayso adigoo ma aragtaan khamkhamaya soo noqonayo oo dadna dharka markaa waad iska badilaysaa walaakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam mar alle markuu dhididaba jirkiisa isaga udgoon ba ka soo baxaya jirkiisa udgoon mar alle markuu arkay gacantan inay tahay gacantii nabiga jileeca carfiga soo baxaya uu yahay carfigii udgoonkii jirkiisa ka soo baxaya markuu gartay inuu nabi maxamed uu yahay shakhsigan ayuu dhabarkii nabiga ayuu dhabarkiisii nabiga ku xamaaray laabtiisii markaa buu yaa rasuulallah oo haddii aad tiraahdo addoonkaygii weeyaan han iibiyana aniga ayaa iga kaa iibsanayay buu yidhi nin faqiira oo miskiin oo reer baadiye ayaan ahay buu ka yidhi kaa bixi maayo layga kaa iibsan maayo buu ku yidhi markaa buu nabigu isku sii dhajiyey isaguna markaa buu yidhi lasta bikaasidin ma tihid shakhsi qiimo hooseeya bal anta cinda allaahi qaali buu nabigu ku yidhi waxaa tahay shakhsi ilaah agtiisa qiimo weyn kula tahay buu nabigu ku yidhi man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan طayibah walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها وينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم
run ahaantii wax jadiida oo cusub laynii sheegi maayo. wixii aada hore u maqasheen unbaa lagu celcelin, waayo shareecadeenna dhanba caynkaasa. shareecadda islaamku waa shareecad qadiima weeyaan, walaakin saalixun likulli zamaanin walikulli makaan. zaman kastoo la joogo way ku habboon tahay diinteenna islaamka in la barto, in la maqlo, in la dhagaysto, in lagu camal falo. meel kastoo la joogana diinta islaamku iyadoo unbaa ku habboon in lagu dhaqmo oo la barto oo laysku dhaqo. saaad wada ogsoon tihiin, aadaanku waa soo jireen ilaa cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam, wax isbedela laguma samayn. salaaduna waa lamid oo isbedel laguma samayn. salaadu waa salaadii asxaabtu ay tukanayeen, tii un baan inakuna aan tukannaa. soonkuna waa soonkii uun, qur-aanku waa isla qur-aankii uun, axaadiistu waa axaadiistii uun, shareecaddu waa shareecaddii uun, diintu waa diintii uun, isma bedelaysa iyadu. laakiin dadka diinta haysta ayaa isbedelaya. $10 ayaa laga yaabaa nin miskiina inuu gacanta ku hayo, isla markaana $10 nin maaragtaane madaxweyneha inuu gacanta ku hayo. labada lacagood ee labada nin ay kala hayaan waa isku qiimo weeyaan, laakiin labada gacmood ee kala haysa ayaa kala duwan. diintuna waa sidaasuun, zaman kastaba diintu iyadii weeyaan, isbedeli mayso. qur-aanku waa qur-aankii, axaadiistu waa axaadiistii nebigeena calayhi salaatu wasalaam, laakiin dadka diinta haysanaya ayaa isbedelaya. cabdulaahi ibnu cumar allaha raalli ka noqda, isagiiyo aabbihiibe cabdulaahi ibnu mascuud ayaa taabiciintii oo ardaydiisii u badnayd ayuu ku yidhi asxaabtii nebi maxamed, ininkaa ka salaad badan oo ka soom badan oo xagga uu dadaalka ilaahay taacaddiisana uga dadaal badan buu ku yidhi, laakiinse way naga khayr badnaayeen buu yidhi. markaasaa lagu yidhi abaa cabdiraxmaanow, see ku dhacday inaad tidhaahdid asxaabtii nebi maxamed ininkaa ka salaad badan oo ka soom badan oo ka dadaal badan xagga maaragtaane qaabka cibaadada aad ugu dadaalaysaan, laakiinse way naga khayr badnaayeen baad nagu tidhee, sidee ku dhacaysaa? markaasuu yidhi hum kaanuu ashada fi ddunyaa wa arqaba fi laakhira buu yidhi. labada sifo ay nagu dheeraayeen waxa weeyaan, ayaku dad waxay haayeen adduunka dhexdeeda ku saahiday, aakhiradana jeceloo qalbigooda aakhirada ayaa ku weynayd buu yidhi. marka dadka diinta haysta ayaa kala duwan, ayaa kala qalbiya, oo kala caqiide ah, oo kala kalsooniya. saa darteed wax jadiida oo cusub laynii sheegi maayo shareecadda islaamku, bal qur-aanka ilaahay ku sheego, ilaahay baa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku leeyahay, adiga hortaa erge maaragtaanee diintan umaanu diran ilaa haddaan erge adduunka dusheeda risaalad u soo dhiibannoon soo dirannay, dadka waxay ugu yeedhayeen laa ilaaha ila allah, dadew dhahada, oo ilaahay garashadiisay ugu yeedhayeen iyo ilaahay cibaadadiisana way ugu yeedhayeen baa lagu yidhi. isbedeli mayso. min ladun aadam calayhi salaam, waxaana rususha ugu horreeyay waa nebi nuux calayhi salaam, ilaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadho, nebiyadu dadka waxay ugu yeedhayeen waa mid keliya. middaasi waa maxay? waa dadow ilaahayni abuuray garta, dabeedna kolkaad ilaahay garataana cibaadadiisa ay nii dhib yaraanaysaa. wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, ay ilaa liyacrifuuni. ibnu cabbaas mufasirkii qur-aanka waa kii lahaa, qur-aanka markuu aayadda inoo macnaynayo, ilaahay baa yidhi jin iyo insi umaan samaysan ilaa waxaan u samaystay inay aniga ay caabudaan baa ilaahay yidhi. cibaadadu markaa waa macrifo, macrifada ayaa horaysa. markaad ilaahay garatid ayaad cibaadada ilaahayna kuu dhib yaraan. lidaalika cibaadada iyo macrifadaa horaysa. nebi kastoo adduunkan yimidayna qoomkiisa wuxuu ugu yeedhayey dadka ilaahay buu baraayey.
maxaa yeele dadku hadday ilaahay ay bartaan oo allihii koonka keene ay cilaaqo fiican iyo xidhiidh fiican uu dhex maro nolosha adduunyadan iyo taakhiro labaduba marka way u hagaagaysaa. marka wax jadiida laynii sheegi maayo, intii aad maqli jirteenuba laynigu celcelin. aadaanka waa lagu celceliyaa uun, salaada waa lagu celceliyaa uun, qur-aankana waa lagu celceliyaa uun, soonkuna sanad walba bisha rabadaanunbaa la soomaa. xajka dadka tegaya ku noqnoqonaya meelo kaloo dheeraada ma tegaan. waagii u horraysay xajku qofku tegey acmaashuu berigaa qabta unbuu haddana qabanuu samayn. diintu maaha wax kolba zamanka maaragtaane intay ka fadhiisaan kolba waxay ku soo darayaan ma noqon karto shareecadda islaamka. waa kaamil